baryahan marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan horta waa wadaniyiin goorma dad yaay waayo qofka xaq u leh caasha waa wadani ceebnana wadani ma ah Alisu waa wadani Axmedna ama jaamacna wadani ma ah qofka iskala xukunkaas yaa gaari karo maana maalintii la soo istaaga dhahayo muxuu ahay jaamac waa wadani Alisu wadani ma aha ama caasha waa wadani ceebnana wadani ma aha maana dhahayo yaan ahay aniga markaan saas dhahayo qofkan waa wadani macnaheedu markaan dhaho qofan wadani ahayna jira waay Soomaa yaa qaanku wuxuu dhahayaa qof kasta dambi ma leh ilaa dambi asigu u leeyahay maxkamad ku cadeysa dambiir inuu yahay wardadkani waa Soomaali waa wadaniyiin dalkooda jecel yihiin waa u dhinteen waa u dhiig baxeen waa u taagan yihiin wali cashuurtay la taagan yihiin bixinayaan ayadoo wixii cashuurta loogu bedeli lahaa aan haysan yaa hadana rajay qaban biri ama shaqawgeeda u bixinaan maanta in kuwa qaanad la diliyo wadaniyiin yira kuwa kalena wadaniyiin ma aan yira sax ma xoogagaasi marka intay ka tirsiin shaqaalaha rayidka ay ka tirsiin registerka dawladda shaqaalaha dawladda ay ku jiraan ciidamada ay ka tirsiin ururo bulsho oo bulshada rayidka oo madax banaan oo madalooyinka bulshada rayidka ah ee dalka dhan meel kasta ka jira miyay ka tirsiin dhagihiin kor hadalada astaamo aan fiicnayn waaye afcaasha iyo jiritaanka iyo sharciyada wax lagu qiimeynayaa magaca iyo bulhada iyo buuhada iyo muxuu ahay gurbaantumida iyo buuyeerida ma aha maxay yihiin waxaan la sheegaya in isweydiinaan u baahannahay calaamo fiican ma aha sax ma aha haddii la rabo dawladdu ha sharciyeyso xoogaga wadaniyiinta shaqaalaha rayidka ka tirsiin ha dhacdo ayadu faraha ka qaadday dad ayagu is abaabulayo meel taagan oo bulshada rayidka oo madalooyinka loo hay'adaha leh oo taagan han noqdaan dad ayagu isu tagay meel maalin ku shiray banaanka taagan han noqdaan laakiin niman sharci lahayn sharciyad aan haysan qarashka dawladda in lagu bixiyo abaabul lagu bixiyo oo wakiilka maxaan ku dhaahdaa hebel wakiilka hebel maxaan ku dhaahdaa la yiraahdo iyo maxaan ku dhaahdaa wakiilka hebel gobolka iyo wakiilka xaggaas la yiraahdo waa soo joognay shalayaan soo aragnay waana ku soo hoognay yaa naloo celinay dawlad sharciga intay ku taagan tahay oo qawaaniinta iyo dastuurka ay ku ayay dawlad tahay waa la aqbala waa loo hogaansama maalinta ay sharci ku dhaqmi weyso dastuurka baarmarto shuruucda kale jira ay baarmarto loo hogaansama maaha yaa loo sheegaa war waa qalloo cateen war jidkii waa kasii leexan waaysiin war bandonaalkaa ku socotiin duurkaad aadeen war ka soo noqda waa loo sheegaa hadday ka soo noqdaan alxamdulillah wadadii la yaqiino dadku ay sameysteen ay ku soo noqdaan hadday ku soo noqon waayaan naxariga laga furana waa idinkii waxa sameeyaysiina la leeyahay xisbiyadu codka ay u taagan codkaas waad maqasheen maalmo badan oo ka hadalnay mana ka caajisayno waa ku celcelineynaa dadka dawladdu waxay dawlad u tahay dadka dawladdeenu waa qabaryar tahay wax badan oo dawladnimada u baahneed waa ka dhiman yihiin wax badan oo caqabada ah oo xiriir ah oo dawladnimada dhibayo waa ku taagan yihiin waxaasoo dhan waa garanaynaa inaan ka garab istaagnaan diyaar u nahay inaan ku garab istaagnaan diyaar u nahay inaan u wihiilinaan diyaar u nahay